بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وربحين كوبان وكسابسن مرينكا هرمز قرما يالا قونسي مرينكاني iyo muhiimadiisa istiraatiijiyadeed waa ciidda u bixisay magaca Hormuz maxay tahay diinta qadiimiga ee laga soo maanguriyay magacani Hormuz muxuu ka turjumayaa magacani Hormuz macna ahaan ka hor intii aan loo bixinin magacan marinkaasi maxay yihiin magacyada loo yaqaanay sidoo kale marxaladaha taariikhda uu soo maray ka hor intii aan loo bixinin magacan iyo gabi ahaanba halka uu ka soo bilowmay ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkani taariikhda iyo tiknoolajiyadda oo toddobaadkani aynu ku eegayno taariikhda marinkaasi Hormuz. marinka Hormuz waa mid ka mid ah marin-biyoodada ugu muhiimsan caalamka isagoo isku xira gacanka Faris iyo gacanka Oman. taariikhdiisu waxay soo martay marxalado kala duwan oo isugu jira ganacsi qadiimi iyo loolan awooda caalami ah. magaca Hormuz waxa uu markii hore ahaa magaca magaalada dekedda ee ku taala dhulweynaha Iran ka hor intii aan magacaasi loo bixinin gacanka intii uusan magacani noqonin midka rasmiga ah ee caanka ah. gacankan iyo aaga ku xiran waxa loo aqoon jiray magacyo kale waxa ka mid ahaa magacyadaasi Bab al-Salam. taariikhdii hore gaar ahaan xilliyadii hore ee islaamka waxa loo aqoon jiray Bab al-Salam oo macnaheedu uu yahay albaabkii nabadda. Greekii hore waxay jasiiradani ku taal marinkan u yaqaaneen Organa oo ka mid ah magacyada markaasi loo aqoon jiray marinkan. sidoo kale ka hor intii aysan magaca Hormuz la wareegin jasiiradda Hormuz ee hadda loo yaqaano waxa loo aqoon jiray Jarun intii lagu guda jiray qarniyadii dhexe ee islaamka. sidoo kale waxa ka mid ah magacyada loo yaqaanay intii aan loo bixinin marinkani Hormuz Since Perses khariidadii hore ee Roomaanka iyo Greega sida Ptolemy iyo Strabo marinkan looma calaamadin jirin magac gaar ah balse waxa loo tixgelin jiray qayb ka mid ah badda Faris ama gacanka Faris. haddaba halku dhegiyo iyo magacyo tilmaameed kuwaasi oo ka baahsan magacyada loo yaqaanay gacankani ayaa iyaguna jiray waxaana ugu caansanaa halku dhega loo yaqaano Jawal in the Ring of the World. Marco Polo oo ahaa socotaana waxa uu magaaladan iyo deegaankeeda Hormuz u yaqaanay jawharada ku taal Farantiga dunida sabab la xiriira wadantinimadeeda iyo muhiimadeeda ganacsi. sidoo kale waxa ka mid ahaa Hormogo sida laga soo xigtay laajada maxalliga ee koonfurta Iran. magacani waxa uu ka yimid Hormogos oo macnaheedu yahay hor oo ah marinka iyo Mogos oo macnaheedu yahay timir taasi oo noqonaysa marinkii geetimireedka. asalka magaca Hormuz laftiisa waxa la aaminsan yahay inuu ka yimid Ahura Mazda oo ahayd mid loo yaqaanay ilaaha sare ee diinta Zoroastrianismka ee Farisiintii hore kaasi oo markii dambe isu bedelay Hormizdi. Hormuz magaca shan ka mid ah boqortooyadoodii Saasaniidka ee xukumi jiray dhulkaasi. isku soo wada duub magaca Hormuz waxa uu si tartiib ah u noqday midka lagu garto marinkan biyo mareenka ah intii u dhaxaysay qarnigii 13aad ilaa 16aad kadib boqortooyadii la magac baxday Hormuz kadib markii ay noqotay awood weyn oo dhinaca ganacsiga ah. haddaba cidii aasaastay iyo asalkiisa magaca Hormuz waxa la rumaysan yahay in uu ka yimid ereyga Farisiga ee Hormuz oo loola jeedo ilaahi diinta Zoroastrianismka ee Ahura Mazda ama ereyga Hormogo oo macnihiisu yahay meesha timirta. inkasta oo labadaasi ay yihiin labada ugu waaweyn ee taariikhan isku soo horjeeda isla mar ahaantaana lagu qeexo inay ka yimaadeen asal ahaantiisa. boqortooyadii Hormuz ayaa la aasaasay qarnigii 10aad waxaana aasaasay amiiro Carbeed oo ka soo guuray Oman kuwaasi oo hogaaminayay Maxamed Deramko. xaruntii ganacsiga ee boqortooyadani waxay markii hore ku tiilay dhulweynaha laakiin markii dambe qarnigii 13aad waxaa loo soo raray jasiiradda Hormuz si looga baxsado weeraradii Mongooliska oo xilligaasi ku hayay farakulul dhulka. haddaba marxaladaha uu soo maray xilliyadii hore ee loo yaqaanay Bronze Age 500 sano ka hor dhalashadii Ciise waxay ahayd marin muhiim u ah ganacsiga u dhaxeeya ilbaxnimadii Mesopotamia iyo dooxada Indus. sidoo kale boqortooyadii Achaemenid ee Faris iyo uu hogaaminayay
daaraskii weynaa ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee aqoonsaday muhiimadda istiraatiijiyadeed ee marinkani. xilligii islaamka qarnigii 7 ilaa 15aad marinku waxa uu noqday xudunta ganacsiga badaha ee dunida islaamka isagoo isku xiriyay Shiinaha, Hindiya iyo Bariga Afrika. gumaystihii Boortaqiiska 1515 ilaa 1622 Boortaqiiska ayaa qabsaday Hormuz sanadkii 1515 si uu xakameeyo ganacsiga u dhaxeeya Yurub iyo Aasiya. xilligii boqortooyadii Safavid iyo Ingiriiska ee sanadkii 1622 ilaa iyo qarnigii 19aad. xilligii boqortooyadii Safavidka iyo Ingiriiska 1622 ilaa iyo qarnigii 19aad. boqortooyadii Safavidka ee Iran oo gacan ka helaysa Ingiriiska ayaa ka saartay Boortaqiiska sanadkii 1622 taasi oo bilowday xilli loolan u dhaxeeya awoodaha Yurub iyo boqortooyooyinkii gobolka. haddaba xilliga casriga ah laga soo bilaabo 1900 helitaanka saliidda ayaa bedelay muhiimadda marinkan isagoo noqday wadada ugu weyn ee shidaalka adduunka. xaaladiisa maanta hadda marinku waxa uu ku jiraa marxalad aad u kacsan. xiisadda Iiraan iyo Mareykanka. Iiraan waxa ay marar badan ugu hanjabtay inay xiri doonto marinkan xayiraado la xidhiidha weerarkii ugu dambeeyay ee Abriil 2026 waxay sheegayaan in Iiraan ay sheegtay in ay xiratay marinka ama ay ku soo kordhisay minooyin iyada oo uga jawaabaysa cadaadiska Mareykanka. muhiimadda dhaqaale ee marinkani ayaa lagu qiyaasaa qiyaastii 20% saliidda iyo gaaska adduunka ayaa hadda marinkani mara. guud ahaan intaasi waxaa ku dhan barnaamijkeennii taariikhda iyo tiknoolajiyadda oo toddobaadkani aynu ku eegaynay taariikh kooban oo ku saabsan marinka Hormuz. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Najiib Yuusuf Cabdi. intaan ku kulmayno barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.